kusoo dhawaada barnaamijkan waa barnaamij gaara oo idinka imanaya magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga. barnaamijkan waxa marti igu ah Saciid Cawil Jaamac oo isagu hormuud ama taliye ka ahaa kacdoonkii la baxay dulmidiid ee muddo 2 sanadood ka socday Somaliland ee lagaga soo horjeeday dawladda uu madaxda u yahay Muuse Biixi Cabdi. aad baan marka hore kuugu soo dhaweynaya telefishinka Universal. su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxa weeye ma darajada generaalka aad adigu sheegato ayaan kuugu yeedhaa mise darajadii korneelka ahayd ee ciidanka Somaliland aad kaga goosatay? bismillaahir rahmaanir rahiim. cabdisalaan horta marka hore waa dhawahay waxa weeye darajadu ma noqoto qofku darajada uu gaaro sarkaalka ciidanka ah ilaa uu godka galo waa loogu yeedhaa ilaa uu dhinto. jenaraal ciidamada baan ahay reer Somaliland safeedana waxaad igu yeeraysaa jenaraal Saciid Cawil Jaamac oo magaca dheer Caare. laakiin jenaraal Caare haddii si kale su'aasheeda aan u dhigo darajada generaalka adiga ay siiyay Soomaa haddii muran yimaado oo laga warramo oday wax ku ka qaatay la yiraahdo ana certificate-kooda la soo bixi doono marka ay meesha timaado. waayi muddo 9 bilood aad imika joogtay wadankan Turkiga heshiis baad kaga soo baxday Somaliland lagu soo afjaray colaadii 2 sanadood socotay ee adigu aad hormuudka ka ahayd. heshiiskaad halkan ku timi muxuu ahaa? bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan ku yimi asaliyan markii madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta iyo dawladda heshiiska aanu galay waxaan u imi halkan caafimaad baan ku inaan check up soo mariyo caafimaad waayo muddo 2 sanadood ayaan duurka ku jiray. marka heshiiskii markuu dhamaaday aniga dalbaday inaan Turkiga imaado oo aan dhaqtar qabto. marka sida dadka qaarkood ay u fahansan yihiin arrintu ma ahayn ma in laga soo takhalusayo sida Turkiga aad ku timi? bismillaahir rahmaanir rahiim. nin wadanku u baahan yahay baan anigu nin laga takhalusana mihi sifaan kan ku yimi caafimaad baan ku yimi. haddii aynu dib ugu noqono sifiha aad uga goosatay ciidanka Somaliland oo markii dambena dagaal kula jirtayba maxaad qoonsatay? bismillaahir rahmaanir rahiim. cabdisalaan hero arrintaasi waa arrin aad iyo aad u qoto dheer qorshaheedu waxaan tirsaday uun sidii sharcigu ahaa dagaal beeleedo ka qarxay halka inaan loo maamulin. maxaad uga jeedaa taa? waxaan uga jeedaa sidii loo dhaxgali lahaa ee cadaalad loogu sameyn lahaa ayaan loo sameyn dawladnimadina waa la mujumay. wararkan anagu haynaa waxa weeye in dawladda Somaliland ilaa intii colaadda la soo afjarayay ay dadaal xoog la gelisay sidii colaadda loo maareyn lahaa oo muddo 4 sanadood aan mar kaliya laga qoob qaadin. marka taasi ma jirtaad leedahay? waxa jirta had iyo jeer marka meel shaqo ka dhacdo dhinacyo laga galay leedahay dhinacyo laga galo ayay leedahay wali waxaanay fahmin inta 4 sanadood ba ilaa iyo arrimihii de markii jabhadii la soo dhameeyay hawsheedii dhamaatay ee beelihii ay iyaga laftooda ka timi nabaddu iyaga laftooda ay inay nabad qaataan ka timi oo ay waxyaalo badan iyo cid ay waayeen waxa weeye dhinacay markii hore ka eegayeen ayaa dhinacii nabaddu ku afjarmi lahayd aan ahayn. laakiin eedayntan soo jeedinayso marka horena ahayd basaad sheegtay arrintii aad u goosatay ee ahayd in dawladdu ay dhinac la safan tahay maxaa cadeynaad u haysaa? bismillaahir rahmaanir rahiim. horta anigu sarkaal sare ciidanka qaranka baan ahaa. waxaan joogay qaybta 3aad abaanduulaheedii baan ahaa. nimankaas dagaalkaas oo qarxaya ayaan anigu 2 beelood oo isdilaya soo dhaxmaray. kadibna guddiga nabadgelyada gobolka ayaan u yimi xafiiska maayarkaan ku shiray. kadib saraakiishii meesha haystay police iyo military baa iga sarreysay ee qaybta taliyayaasha ka ahaa ayaan u bandhigay. xogaal maayarku ka ahaa xildhibaan baar baa nala joogtay. waxaa nala joogay xogayaad gobolka. waxaa nala joogay ka dawladda hoose. warragaan kala gaadhno ayaan iri
kadibna arintaas jawaab cad baan inisiyo wuxuu yiraahdaa haystilaan yaa markaa odhanaya waxa odhanaya nin taliya qaybta militariga ahaa oo fanax la yiraahdo markaa taliyaha qaybta wuxuu ahaa gobolka Sanaag baan dulihiisana labada beeroodna waan ka soo wada jeedin waa talafteeda su'aasha kale doonayna ku weydiiyo maadaama labada beelood ee dirirtu ay u dhaxaysay ama khilaafku u dhaxeeyaa ka soo kala jeedeen ma la oran karaa labada beelood ba la kala safateen tawa cadayba Cabdisalaam anigu beenta ma aqoon waxna ma dafiro waaba cadaatay markii ugu dambeysay waxay noqotay in uu Maxamed raaco fanax raaco beeshooda anigu laakiin xagga beeshayada ma raacin jabhad baan iska abuuray marka maadaama khilaafku sida sheegayso oo ka abuurmay ama uu ka dhashay adiga iyo taliyahaagi kaaga sareeyay gobolka Sanaag maxaa keenay in jabhadaad samaysato oo deedna jabhadii adulmidiidu la baxdo waxa keenay taliyaha ciidanka qaranka ayaan dhowr jeer ku war meesha naga bedel oo aniga iyo ninkan naga kaxay beesha dhig buu jalaqsino siin waayay kadibna waxaan tirsaday in meeshan colaad laga wado kadibna waxaan go'aankaygu wuxuu noqday inaan ka dhex baxo beelahan jabhad maamulka la dagaalanta samaysto laakiin muranku wuxuu ahaa un ka gobolka Sanaag ee may jirin arrimo kale oo tusaale ahaan aad ka cabanayseen miya kullay marka xagga siyaasiyan uga balance la'aanta ciidanka qaranka iyo saraakiisha iyo isu dheelitirka way jirtay oo ilaa iyo maxaan ku raay dawladii ina cigaal laga soo bilaabo ilaa iminka cid baa hoggaanka sare ee ciidamada qaranka iska fadhida iyadana cid ay doontana meel geysa saraakiisha scholarshipada u dirta ninkay rabtana u dirta dadka qabaa'ilka wada deganna balance looma sameeyo balance laakiin arrintaas haday jirto General Caare dadka beelaha markaas aad leedahay waa laga sadbursado ciidamadii bay ku jiraan saraakiil bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin mowqifkaada adigu qaadatay iyagu saama kula arkayeen waxa weeye run ahaan markan dhab qadar horta heshiis baan ka qaadanayo nabad baan ka qaadanayo oo dawladdu waanu heshiinayo laakiin arrintu siyaabaha ay u dhacday waxa weeye siyaasiyiinta marka la eego nin waliba wasaaradiisa iyo meeshu ka shaqeeyo ayuun buu ku jeestaa waxyaabaha qaarkood iyo laamaha ciidamada iyo amniga iyo qorshaha iyo sida loo qaybsado iyo sida ninkaas uu maamulayo kuma farageliyaan marka isaga ayay dul taallaa marka cabashadaas way jirtay laakiin daa'imanka maba joogo oo jabhadaydii iyo qorshihiina ciidamadan ku wareejiyay dawladii ayaan ku wareejiyay oo daxlaqabeedkii baan ku wareejiyay maxaan ku lahay ciidan adigu ilaa 900 aan ku wareejiyay waxaan ku wareejiyay hub aad u fara badan shaqaale dawladeed baan ku wareejiyay waxna waa dhimay heshiiska iyo sidoo ku yimi waynu soo noqon doonaa laakiin heshiiska yaa la gashan ma dawladda Soomaaliland mise odayaasha idin kala dab qaaday ayaa la gashan Cabdisalaam ruuhan anigu waxaan la galay daxlaqabeedadii iyo odayaashii siyaasiyiinta ee garxajis ee meesha mariyay ayaan heshiiska la galay dawladda ayaga la galay heshiiska maxaa dawladda ku heshiiseen markaa dawladda waxaan ku heshiinay in ciidanka la qarameeyo in la sameeyo balance in ciidanka saraakiisha ay qaataan xilkooda in shaqaale jabhada in wixii aqoonteeda leh shaqaale dawladeed laga dhigo ayaan ku heshiinay heshiiska qayb ma ka ahayd haddaan mar kale kuugu celiyo in adiga laftaadu aad wadanka ka baxdo Cabdisalaam horta waan xanuunsanayay laakiin heshiisku muu ahayn inaan wadanka ka baxo dhaqtar baan qabanayaa baan ku waatay jabhadii baad ku dhawaaqday magaca dulmidiid baa u bixiseen gobolka Sanaag baa joogteen deedna markii dambe xagga Puntland iyo magaalada Qardho ayaa saldhig ka samaysteen xagga maxaa ugu guurteen waxaan ugu guuray jabhad marka la abuurayo ama ciidan la abuurayo waa inuu helo dhul baaxad leh oo uu nabadgelyo ku helo waxna ku dhisi karo marka nin officer tahay sarkaala oo hogaamintiisa leh meel ciidankuna kuugu dhismo tababarna aad ku qaadato kuna xoogna aad ku yeelato oo ka soo duuli karto ammaan iyo nabadgelyo aad ku heli kartaa baad geynaysaa ciidanka taasaan ku daran General Caare
marka ay timaado habka ama nidaamka ciidamada nin sarkaal baad ahayd oo sarkaal xigeena muddo dheer ciidamada ku soo jiray tababaro badan soo qaatay muxuu istaahilaa ninka sarkaalka ciidamadiisa ka goostaa laba wadambi culus marka sharciga militariga dib loogu noqdo wadambi culus adigu markaa ma soo arkaysaa inaad dambiga gashay waxa weeye horta hadii aan si wanaagsan oo bisreexa kaaga jawaabo ma ahayn ugub maaha dowladii maxamed siyaad bare ee maxaa qorahay uu madaxweynaha ka ahaa ee militariga ahayd ayaa saraakiishiisa ka goostay Itoobiya isu dhibtay oo saldhigyo ka samaysteen oo ku soo duulan oo ku burburiyeen oo kaga qabsadeen wadankii anigu dal Soomaaliyeed baan tagay oo muslim joogo halkaas ciidankayga ku soo dhistay wadankana aad baan u jeclaa iyo dadka iyo bulshada ku noolba inkastoo aad sheegayso maamul goboleedka Puntland oo dhul Soomaaliyeed yahay oo dal Soomaaliyeed yahay haddana iskuma sansaan banaana si aad ka warhayso Somaliland khilaafiyo xagga dhulka baa jira dagaalo fara badan baa dhex maray marka sida dadka qaarkood ay u arki karaan inaad cadowgii u gashay sida soo arkaysi Cabdisalaam markaad enemy leedahay cadow leedahay cadowgiisu waa saaxiibka anigu cadow baarkeen saldhigaysiiyeen madaxweynihii wadanka iyo boqorada iyo siyaasiyiinta bashir baan kala galay si aan halkaa ugu tayoobo ugu dhismaa baan kala galay cadow baarkeen dad Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen waa gartay sidabaad isu waafajisay haddii su'aal kale aan ku weydiiyo in adigoo Puntland jooga haddana aad lahayd qadiyadaydu waa qadiyad Somaliland oo dagaalka Somaliland baan kula jiraa ee kamaanu goosan Somaliland waxa la isu waafajinayaa anigu deyn reer Somaliland ragii wadankan lahaa baan bulshada iyo reer Puntland waxaan tusayay deynaan garabkooda ahay oo maamulkan aan col ahay laakiin reer Somaliland baan ahay ninna lagama qaado qadiyadiisa lagama qaado way sababtoo ah marka la isu yimaado ee Soomaaliya heshiiso ayuun bay noqon kartaa in wax la isku darsado wax la isku darsado marka sidaas aan ugu qanciyay saraakiishooda iyo madaxdooda iyo wasiirada iyo madaxweynaha iyo dhaqankooda iyo baarlamaankaba sidaas aan ku qanciyay waana iga ogolaadeen ciidanka aad ku tilmaantay ilaa 900 inay ahaayeen tababarada xagga ku siiseen markii dambe aad xaggan ula soo guurtay ma lagu tilmaami karaa ciidan jabhadeed inaanu ahayna ciidan beeleed inuu ahaa maya laguma tilmaami karo ciidan tababartay oo diriiskooda leh oo qalabkooda leh oo ka kooban reer Somaliland ayay ahay laakiin beeshaad ka soo jeedo ayay u badnaayeen Soomaa waxa weeye ciidanka qaranku waxa derbeel buu badan yahay ciidanka qaranku baa iminka beel buu badan yahay isaga saraakiishu beel bay u badan yihiin baad ciidanka qaranku beeshaas waa tee waa beesha galbeedka way beesha taliyu yahay way marka uu diriiska gashado wuxuu diyaar u yahay inuu dhinto oo difaac qaran buu diyaar u yahay marka hadii qolka ku badato iyo hadii qolka ku yaraato meeshii waa nin dagaalamayo oo waxba ma aha geerida looma diido marka waxa weeye 900 way ka koobnaayeen reer Somaliland laakiin beeshaan ka soo jeedo oo badnaay runahan marka laga tago taageeradii ay ka helayseen Puntland waxa la idinku eedeynay oo dawladda Somaliland ku eedeynaysay in taageero iyo taakuleyn ka heshaan dawladda dhexe ee Soomaaliya taasi ma jirto waxba kama jiraan xagee kale marka taageero ka heli jirtay Cabdisalaam oo markan runku sheego taageerada waxaan ku heli jirnay dawladda Puntland oo caawin jirtay dadkaygana waa ka heli jirtay dadkayga markaad leedahay beeshaada aad ugu jeedaa miya waxay nala mabda ah ee la col ah maxaan ku rahay maamulkan ayaan u iskarabsan jirnay muddadii 2 sanadood ahayd
howlgalka ku jirteen tusaale ahaan waxyaabaha kale aad samaysay waxaa ka mid ahaa inaa lacago loo waday ciidamada Somaliland gobolka Sanaag meelo ka mid ah ku dhacdeen khasaarayaal kalena aad geysateen iminka markaad dib u eegto falalka noocaasi sidee kula ahaayeen cabdisalaam ninku qoyani horta biyees kama dhowro ninku qoyani biyees kama dhowro lacagtaas way jirtay lacagtan jabhada ku sameeyay saldhigga u noqotay raashinka ugu iibiyay shidalka aan goof ku degin khasaare kale oo aan ciidamada u geystay ama dalka u geystay ma jiro dagaaladii dhex maray baa jiray Soomaaliya ciidanka iyo ciidanka Somaliland adigu ciidankaygii buu ahaa meel dhoob la yidhaaho oo cergaabo ka shaysa ayaa maalin fooda isku daray adigu khasaare badan ma jirin kulli dhinacayga gaari baa laga qabsaday xagga kale waxba way khasaare ma gaarin laakiin ciidankaygii baa kuwa la watay ee xabadaha loo soo dhiibay qoryaha loo soo dhiibay ciidankaygii baa hayeen xiriirna waa noolahay inuu warshakaysan jirnay waxaan wariyahay meesha oo lagu soo baxay waqaas wada kulli ragayga meesha waa maray marka waxa weyn ma jirin waa tay muddada kacdoonka iyo dagaalada wadeen waxa barbar socday isku dayo la doonayay nabad lagu gaaro oo odayaasha beeshaad ka soo jeedo ay badankeeda wadeen laakiin muddo dheer bay jiitameen maxay ku dhacday wallahi taasi waxa ku xidhnayd dawladda ku xidhnayd marba halka marka meel la soo taago ayaa dhinac kale iska moosisay marka dawladda ku xidhnayd anigu markii ugu dambeysay markii heshiiskii la soo bandhigay 6 bilood meelahaas 7 bilood buuraha ku jiray intaaba way igu soo noqnoqonayeen odayaashu iyo sulaadiinta iyo boqorada iyo siyaasiyiinta xildhibaanada wuxuu igu soo noqnoqonayeen go'aankii ugu dambeeyay waxaan qaatay mar haddaan caaro u diyaarhayn wadankaagu burburo oo dadkaagu qaxo aan caaro u diyaarhayn nimanka aan tagayn yihiin nabad iska qaado oo dadkaaga iyo dalkaaga u go'aankay ka soo waxa jirtay in mararka qaarkood odayaasha beeshaad ka soo jeeda ay dawladda kala hadlayeen in saamaxaad lagu fidiyo saamaxaadda ma adiga dalbaday mise odayaasha ka timid qorda anigu nin la cafiyayo iyo saamaxaad iyo dambi iyo waxa heshiis baan ku galay marka wali ay heshiisku intaan u dhicin ka hor waxa jirtay dalab iyaga wadayta dalab odayaashu ay u soo jeediyeen madaxweynaha oo madaxweynuhu uu ka diiday oo ahayn lagu cafiyo iyaga taawadi adiga xagga kamayo waa tay markii dambe waxaad sheegtay in lagu heshiiyey qodobo door ay ka mid tahay in maleeshiyaadkaagii ciidanka qaranka lagu daro ama ciidanka Somaliland heshiiska dad fara badan waxay tuhmayaan inay qayb ka ahayd lacag fara badan oo lagu siiyay oo la doonayay inaad hawsha ku joojiso taasi ma jirtay cabdisalaam dadku xumbu iska bomboriya malaayiin lacag ka badan baan ku wareejiyay dawladda oo hub iyo rasaas ayaan ku wareejiyay marka nin anigu lacag ba u baahan ma ahayn nabadgelyadii aan qaatay iyo qorshaheedii iyo nidaamkeediina waan kaaga soo jeestay kulli meel odayaal marayaan oo siyaasiyiin marayso wixii ay kala qaateen madaxweynaha taa anigu ma sii dhaxgelin laakiin adiga maxaa ka soo gaaray kulli jama marlayn gartay dawasada qaar ka mid ah dadkii kula socday ee kacdoonka qaybta ka ahaa waxay kugu eedeeyaan in adigu taadii wanaad fushatay dabadeedna aad fariiro bidix ka baxday eedda sidaas dhinacaagii ka imanaysa sidoo u aragtaa cabdisalaam waxa ka jirtaa raggaygii isagoo qoslaya ayaan qalanay iyagoo qoslayo nin walba bisariixaya oo faraxsan oo nabad qaatay oo ciidamada dalka oo dhan bay ku jiraan imika shaqaalaha ka mid yihiin wadaan soomaha haddii la ismasaajeynayna ciidankayga waa soo masaajay iyagoo waxaad leedahay wixii lagu siiyay wadax ka siisa what waa tay iminka Turkiga joogtaa 9 bilood baad joogtay caafimaadkaagu sidii aad u fiican mustaqbalkaagu markaa muxuu noqonayaa waa ku noqonayaa dalkayga waa ku noqonayaa goormaad ku noqonaysaa sida ku dhaqsaa badan baan ku noqonayaa hadii Allah marka ma ciidankii aad ka tirsanaan jirtay ayaad mar kale ku noqonaysaa mise caaro si kale u socdaa tagaya cabdisalaam
كل عزمة كتير بيرو لكن أنا مدحت السرعة كم النقطة أيان اسكت يا أخدي الله taa dawladda ma ka wada hadasheen heshiiskiiniise ma ku jirtay kama marne ma ku jirtay waa tay markay noqoto aaminaada jaraacaare maadaama ciidanka sarkaal sare aad ka ahayd oo aad ka goosatay dagaal la gashay heshiiseen ma kula tay dawladda Soomaaliland inay markale ku aaminayso waxa laga yaabaa inaanay deetan yaaminin hadeer jirtaa laakiin de waa iska imanaysaa anigu dalkan waan ka soo halgamay imanka waad aragtaayo siyaasadii isbedel badan baa ku yimi in xaashi iyo musabixi way isqabteen xisbigii bay isku qabteen anigu iyaga la mid ah oo wada oo taliya ciidan ah ayaan talixgeeyay labadooda way wada socdo kaambay ku wada jiraan waa waqtigii ololihii doorashada way maanta labadoodiiba kala cararaya oo aan is aaminin markaan aaminaad u soo noqdo kulli the weakness amanaan la aan waa jiraysaa laakiin anigu nin dalkiisa waxa kaga tagay ma noqonayo General Caare aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa Cabdisalaan Hareeri Allah ku karaamayo mahadsanid intaasna waxa ku dhan barnaamijkan gaarka iyo waraysiga magaalada Ankara aan kula yeeshay sida uu isku tilmaamay General Saciid Cawil Jaamac oo ku magac dheer Caare oo isagu madax ka ahaa ciidamadii la baxay dulmidiid ee muddada 2 sanadood dagaalka kula jiray ciidamada Somaliland markii dambena heshiiska lagu soo afjaray barnaamijkeena intaas ku dhan yahay intaynu dib u kulmayno dhamaantiinba nabadgelyo